ay tahay xajkii xajka sida la ogyahay waxaa la siixayaa bishan February 15keeda marka sidiisaba 12 sano lasoo dhaafay xukuumadihii hore waxay ahaan jirtay arrin la iska haysto laab lagu saxiixdo muxuu ahaa koox yar loo saxiixi jiray marka masiirka ummadda muxuu ahaa runtii muddan waan ka qeylinaan ku lahayn arrintan u baahan in laga bedelo xukuumaddan cusubna aan leenahay inay muxuu ahaa ka taxadarto inaysan ku dhicin muxuu ahaa xukuumadii hore waxay ku dhaceen waxaan leenahay ha ka dhabeeyaan hal heeskooda ahaa musuqmaasuqan waa la dagaalameynaa cadaaladdan waan ka shaqeynaynaa waxaan leenahay shirkadaha loo furo ha lagu soo celiyo shaqadii wasaaradihii awqaaftii arrimaha diinta laha shaqada loo dhaafo saa hadda dareemayno waxyaalo isdaba marayaa jiro sidaan ognahay villa Soomaaliya warqad goonina ka soo baxday oo liis gooni wadato koox iyo wasaaradda awqaafta oo liis gooni wadato soo saaray marka waxaan leenahay wasaaradda shaqadeeda loo dhaafo iyo wasaaradaha ku shaqo leh ayadana la shaqeyso wasaaradihii gobolada si muxuu ahaa masiirka ummadda loo ilaaliyo muxuu ahaa maanta xilliyo abaarana soo noqnoqdeen $4,000 lagama bixi karo joogtadan soo noqotay ummaddaanayto dadkan waa ugu faqrisanahay ummadda waana ugu qaalisanahay markii loo fiiriyo geeyiga aan deganahay Afrika muxuu ahaa wadamada noo dhow Asia wadanka ugu qaalisan baanahay wadanka ugu soo dhow waa Kenya Ethiopia 2800 2600 ma dhaafaan marka waxaan leenahay arrintaas ay taad uga digtoonaadaan ha laga bedelo hawsha sidii ku socon jirtay ha loo bedelo dawladnimo iyo cadaalad aan sugayno dadkii u baahi qabeen loo sacabatumay marka taasna waa ka sugaynaa inay ka dhabeeyaan waa ka sugaynaa insha Allah haddii la yiraahdo anagana waan eegaynaa waxa waaye wadanka waa loo dhaartay haddii mas'uuliyiin la yahay dhaarta loo dhaartay waxay ahayd in ummadda muxuu ahaa loo shaqeeyo loona dadaalo waxaan leenahay dhaarka laga dhabeeyo mid kalena waxaan leenahay waa xukuumad cusub baad tihiin xajkii idinku horeeyay way ka duceysta xujaydaas muxuu ahaa marka waxaan leeyahay waad liibaanaysaan taan oo nagu daray insha Allah duleero aad baad u mahadsantihiin wasiir xabiib koox yar baa hadalka ku jirtay oo loo siiyay marka kooxdaas inaan ogaanaan waa la yaqaano waa koox la yaqaano waa shirkadda Jubba kaligeed ma meesha aydan muxuu ahaa sameyn jirtay waxa wasiir madaxweyne ra'iisul wasaare laab la gali jiray marba nin baa u saxiixi jiray waana taa ognahay waxaan leenahay ma aha inaan diidana diyaarad ahaan dadka inay qaado laakiin masiirka ummadda inay noqoto qofkii dadka xajisiinay inay ka mid noqoto rukn min arkaan al-hajj baan diidanahay wixii dhan anaga qabanayno laakiin ay diyaarad noqoto tigid kaliya gooso dadka qaado xujeedi ma ka diid waxaan diidana malaha shirkadkan inay wada tartamaan wada furan tahay intaasoo shirkada dalka ka jiro waana loo baahan yahay tartan inuu imaan tartankan wuxuu keenayaa in ummadda muxuu ahaa ay helaan waxay ku nastaan muxuu meesha ugu jaban ay aadi karaan caalamkana maanta xajka waxa looga baxaa shirkad baa tartamo waxay tagayaan wasaaradda awqaafta mise wadamada muxuu ahaa ka jiraan waxay codsanayaan intaan 100 qof baan qaadi karaa 1000 baan qaadi karaa guryahooda waa soo kireeyay waa diyaar cadeyntii bay la imaanayaan bas tigidkana diyaaradda joogtaa looga goonaya lacagtina waa kala saaranta laakiin haddii la dhaho 4,000 waa isku tigid waa isku xaj kulli wixii ay kala saarneen waxa waaye waxay meesha muujinaysaa in musuqmaasuq fara badan ka jiro